بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cudurka covid-19 ama coronavirus sidoo ku canbaxay ilaa hadda waa uu sii kordhaya. Dadka qaba cudurka coronavirus dunida oo dhan waxa uu marayaa 520,361. Dadka u dhintay cudurku waa 23,593. Dadka ka bogsaday cudurku waa 123,321. Tiradii ugu dambeysay ee 26 bishii 3 2020 habeenimo. cudurka coronavirus walaalayaal waa ciqaabo gaar ah gaalada, waana imtixaan ayuu u yahay dadka islaamka ah. Kaliya kuma koobna cidda lagu ciqaabayo ee demiga gashay, balse waxa uu asiibayaa cid walba sida uu Allah quraankiisa ku yiri suuratul anfal 25. taquu fitnatan balaaye iska ilaaliya laa tusiibanna aan ku dhacaynin alladhiina dalamuu minkum kuwii gardarrada sameeyay idinka mid ahaa khaasatan iyagoo gooni ah way idin wada gaari واعلموا وقال أن الله شديد العقاب إن إلهي عقاب كيسو درين waxa ka socda dunidu ma aha wax cusub, waana mid Allah qoray oo inoogu sheegay Quraanka Kariimka ah suuratul Hadiid aayadda 22. من مصيبة مصيبة كما دعدو في الأرض دولك دحديسا ولا في أنفسكم نفتينا كما دعدو إلا في كتاب بيكو قرنتهي كتاب كاسو كتب الله من قبل أن نبراها انت من نفطب أبورين أما سمي عربا أنان سمي يدول أنان أبورين تساب الله قريبا إن ذلك كاسي يسير وفدوديا على الله يبوين كل كيسا وكفر inaga waxay nagu filan mar haddii aynu nahay dad islaam ah oo qadarka aaminsan in waxa socda ay imtixaan tahay, dhimashadana aynu marnaba inaga daynahayn. Kama cabsoonayno wadka, waayo marnaba seegi mayno, ee waxa muhiim ah in aanu inoo iman inagoo aan shaqaysan shaqada aakhiro, sida Allah quraankiisa ku sheegay suuratul baqara aayadda 132. ووصى بها دينتا واحد دردارمي إبراهيم نبي إبراهيم بعرورتي بنيه النبدي سيو دردارمي ويلشيسي ويعقوب نويلشيسي ودردارمي دينتا إسلامك يا بني بول ويلشي ديو إن الله اصطفى لكم إلهي وحيدين دورتي الدين دينتا إسلامك إن كل قنطان والراعدان فلا تموتنها لمننا إلا وأنتم إذنك مسلمون إلهي وكان سر مويان. sidoo kale Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ina baray ducaa cajiib ah oo laga ducaysto xanuun gaar ah iyo xanuun kasta oo xun inta muslimka looga baahan yahay inuu ka hortag ka dhigtana ay tahay. ducadan oo nabiguna baray waxay tahay sida tan: Rabbow, waxaan ka magan galay baraska, waalida iyo judaamka, xanuunka faraha googooya iyo dhammaan xanuunada xunxun. intaa kadib samee fariimaha caafimaad ee dhakhaatiirtu hadda ku baraarugeen, balse nabiganu inoo sheegay 1400 oo sano ka hor. fariimahaas oo meel walba la gaarsiiyey si aad naftaada iyo nafaha ummadda kaleba u badbaadaan. ugu dambeyn, Allah ayaynu weydiisanaynaa inuu inaga fogeeyo cudurradaas iyo wax kasta oo xun.